الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي اللي هي طبنات هي دروستين بش رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. رمضان فرصد وحوية السيدو كلا قفك سنوينك كجابين جري سنوينك سكو صلاة هالنقضان محاجر كو صونك هالنقضان marka waa jaanistani maxaa jira naftu way diyaarsan tahay bisha ramadaan, quluubtuna way diyaarsan tahay, khushuuc bay ku jirtaa. marka in sunnooyin badan baad baranaysaayoo waxaa la tukadaa habeenkii taraawiix baa la tukadaa. marka sunnooyinkii aad baratay inuu qofku daa'imo waa muhim bay u tahay insha allahu tacaala. qofka saan sheegnayba ugu horeysa waxaa laga xisaabin baa nidhi qofka muslimka ah maalinta qiyaamo salaada waajibka ah baa laga xisaabin doonaa. haddii ay u fiicnaato alxamdulilah, haddii ay wax ka dhiman yahay waxaa la fiirinayaa sunno qofku ma leeyahay, hal lahu min tatawuc, wax sunnaa ma haystaa. haddii sunnadii jirto way kuu kaamil yeelaysaayo iyadiibaa wax lagugu darayaa. waxaa kamid a sunnooyinkii maalan salaadii habeenkii la tukanayay watrkii baa kamid ah, oo salaad witr haddii la yidhaahdo watrigii habeenkii la tukanayay, iyo haddii la yidhaahdo salaatu leyl, iyo haddii la yidhaahdo salaatu tahajud, iyo haddii la yidhahdo salaatu taraawiix, intuba waa salaad un habeenkii, waa hal salaad wey. waa hal salaad oo la tukado cishaa'iga kadib. waa salaada la tukado habeenkii cishaa'iga iyo inta udhaxaysa salaada fajarka, intaa wixii udhexeeya magaca way wada qaadani. kelimada marka wax yaraa lagu kala saarsaarayo watirka micnaheedu waa hal keliya, hal keliyaalaha lagu soo khatimo oo ugu dambeeyabaa magaca isagu leh. sidoo kale tahajud haddii la yidhaahdana markii la seexdo lasoo kacoba iyaduna magaca gooni, laakiin magaca shaamilka oo taraawiixna waa tan in la tukado iyaduna dee salaada taraawiix hadda loo taagno, laakiin magaca kulligood kulminayaay waa salaatuleyl. salaatuleyl baa magacaasa kulli isu wada geynaya. marka witrka waxaa la ragcad baa ugu yar, waxaa weeyaan 11 ragcadoodna waa ugu fiican tahay, waa inta hadda laga tukado, mana reebano oo habeenkii qofku intuu rabuu tukan karaa. waxaa jira xadiis baa wuxuu dhahayaa salaatu leyli mathna mathna, waa laba labo. xadiiskaa waxaa la lama xadidin, marka sida raajix ugu xoog badan salaadu habeenkii ma xadidna, qofba qofku ka salaad badan yahay iyo qofkii intaad awoodo tuka weeyaan. salaatu duxaa baa iyaduna jirto 2 ragcadood baa ugu yar, 4na taqriiban waa ugu fiican tahay xadiiska marka la fiiriyo, oo jannada ilaahay baa lagu galaa. rawaatibta salaadaha la socdaay waa 12, oo duhurka 4 baa ka horeeya, 2na way ka dambeeyaan, maqribkana 2 ayaa ka dambeeya, cishaa'igana 2 ayaa ka dambeeya, subaxana 2 ayaa ka horeeya. sidaasa sida ugu fiican loo tiriyaa. si kale haddaan u dhigno 4 ilaa 12 ragcadood ee sunnada ah oo rasuulku yihi sala allahu caleyhi wasalam, ma jiro qof muslim ah oo tukada maalintii iyo habeenkii 12 ragcadood oo tatawuc ahoon faradka ku jirin, ilaa bana allaahu lahu beytan fi ljanna, ilaahay jannadu uga dhisayaa guri. marka waa salaadaha witrka weeye. waxaan ujeedaa ah salaata raacsan rawaatibta la yidhahdo 12 ah. 6 kamida duhurkaaba qaataba si ay kugu sahlanaato saad u tiriso. 6 duhurkaa iska lahoo 4na way ka horeysaa, 2na way ka dambeeyaan. saasuu 6 ku qaatay. inta kale waxaa weye maqribkoo 2 ka dambeyso, cishaa'igoo 2 ka dambeyso, iyo subaxoo 2 ay ka horeeyaan. ayib, sunnooyinkiiba iyaguna imaan doona. soonka haddii la yidhahdo 6 beri oo shawaal ah baa iyaguna kuu kamili. waa dad 6 beri shawaalka ka soonto, iyaduna qof sanad dhan soomay baad noqonaysaa. laysugu kaa daray yowmu cashuuraa, yowmu carafa, isniin iyo khamiis, 3 maalmood bisha laga soomo. wax badan baa ku wada jira. ramadaan wuxuu fursad u yahay oo kale qofka qur-aanka ka hijrooday, oo qur-aanka ilaahay aan aqrin jirin, tadabburkiisii iyo xifdigiisii iyo qiraa'adiisii iyo ku dhaqankiisii intaba. marka bishani waa jaaniso isaguna uu ku bedelo. maxaa jira qur-aanka iyo soonka horeyna waa usoo sheegnay, way u shafaaco qaadi doonaan qofka, way u ergeynayaan. kana wuxuu odhanayaa ilaahay habeenkii buu soo jeedi jiray, kana wuxuu odhan ilaahu maalintii ayuu maaragtay soomanaayo cuntadii daayay, annagaa maanta ku hagooganay oo ku habsanee noo daa ilaahayow. marka waa loo dayn doonaayo, iyagaa u gargaari doona insha allah. ajirka ay leeyihiin rasuulku waa kii lahaa, man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu bihi xasana walxasanatu b10 amhaaliha, laa aqulu alif laam miim xarf, walakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarf. yacni qofkii hal xaraf kitaabka ilaahay ka aqriya 10 baa loogu dhufanayaa. alif laam miim oo keli ah baa 30 darajaad ku helaysaa.
waayo mid walba saddexdaa eray alif iyo laam iyo miim toban baad ku helaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. marka dadkii salafka ahaana waxay ahaayeen daddii qur-aanka saynu soo sheegnay aada u aqrin jiray oo isku dayi jiray inay dhammeeyaan, qaar habeen dhammeeyay, qaar 3 beri markuu dhammeey, qaar 7 beri ku dhammeey, qaar 10 beri ku dhammeey, qaar bisha dhammeey. marka qofku inuu yeesho baa la yidhahdaa wardi wuxuun inaad samaysato waxaasoodan daynaynin ood aqrinayso haba yaraado, ilaahumaad in yar samaysatid. maxaa jira acmaasha waxaa u fiican kala daa'imo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. axabu lacmaali ila allahi adwamuha wayanqal, wixii la daa'imaa fiican ee haba yaraadee. marka bishana waa bishii qur-aanka, kitaabkii lasoo qaaday ee la aqrin jiray yaan lagu celinin galkiisii iyo boorsadiisii ramadaan markuu dhammaado biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. jazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.